anugu horeysiye wadanka Soomaalidu wuxuu ka mid ahaa wadano fara badan oo ku caana fooxa iyo murta. Haddaba su'aashu waxay tahay fooxa iyo murku maxaa dawadiisu hayd, maxaa loo isticmaali jiray? waxa hubaala dadkii Greega iyo Roomaanka iyo Masaaridii hore waxay fooxa iyo murkaba loo isticmaali jiray wax ku saabsan diinta. berigii hore dadku kolkay dhintaan lama aasi jirin, kolka waa la gubi jiray, kolkaasa fooxa iyo murtaba la isticmaali jiray. wadanadaasu ay ka mid tahay dadkii ku noolaa wadankan Talyaaniga iyo wadano fara badan oo ay jiraan yihiin iyo Masar qudheedeedaba. kolkii diinta Kiristaanku ay ku faaftay aanay qaateen diinta Kiristaanku, kolku sanadku waa kolka taariikhda Kiristaanka la eego 323 ayaa fooxii iyo murkiiba laga baxay. sababtoo ah diinta Kiristaanku waxay faraysaa dadka ictiqaada haddii dadku ay dhintaan in la aaso. sida aawadeed ayaa fooxii iyo murkiiba laga baxay.